halkan waxaa jooga saddex kooxood oo kooxaha ka mid ah laba kooxood oo ka mid ah ayaa guddoonsiinayaa garamada geeska oo isku dhan waxa weeye anigoo ah guddoomiyihii guud ee magaalada gudoomiye uu joogo kelmadiisa oran doono waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay ka dhigo 10 kooxood ka mid ah kooxaha degmada Qoryaal xukunto ayaan magaalada ugu qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan guddoonsiinayaa gudoomiyaha kooxda FC magaalada marka waxaan ballan qaadaynaa 10 kooxood haddii ilaahay ka dhigo inaan u qabanno koob si dhaqso ah. halkan waxaa joogta dhallinyaradii 3 kooxood oo inaafmadooga ah oo aanu ku wareejinayno imika maanta sida gudoomiyuhu sheegay aanu ku wareejinay laba diris ku wareejinay marka waxaanu ballan qaadnay anigoo ah gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga wadani waxaanu ballan qaadaynaa inaanu halkan ka qaban doono xaflad ah aanu koob ku wareejinayno 10 kooxood aanu qabanayno oo 2 kooxood oo reer Qoryaal ah degmada Qoryaal ah halkan oo 2 kooxood 3 kooxood koox xayira ah inaanu 6 kooxood aanu qabanno koob u qabanno ayaanu go'aansanay marka maanta halkan waxaan ku wareejinay 2 kooxood baan ku wareejinay direeskoodii ku wareejinay oo dhammaystiran marka disaasan ayaanu sheegaynaa dadka iyo wax laga maamulka ah wadada